صعب وين ما وحاوغاتا الله سبحانه وتعالى وحنو بلن قاداي نصر يقول يا غرغار adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo oo sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yiraahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalan baabiye murtadiin baan baabiye oo ummadii ku tumato ilaahay baan idin ku dhaariyo suura noocay bay u taala masaasa jihaada mataasa gaalan la dagaalana mataasa wadan xoreyn ah mataasa muxuu ahay khayr iyo wanaag iyo guul lagu doonaya abadan suura qabiixa gaalada kala noocyada kala duwan iyo murtadiinta noocyada kala duwan dhamaantood waxay noo yihiin hadaf mashruuca oo Allah subhanahu wa ta'ala aanu ku caabudayno ayay noo yihiin dilkooda iyo waxa ay qarxintoodu marka ha laga fogaado oo ha laga cararo leenahay maxaad samayn doontaa rabbiga marka intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbiga tabaaraka wa ta'ala hortiisa intay kugu dhagaan ay yiraahdaan rabbiyow waa ka kiina dilay weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما واحد جواب له هلي كرا روح مسلم ولا دلمية إله أكتس جواب له هلي كرا جواب ماله بعد الشرك الذنب كوين متشرو ربي قالنا تبارك وتعالى ميل عبد مسألة صاري قد دقا أقو أدقى القرآن كقصة أرورين وكشيغي روح الروح مؤمن الدلو كس الدله أبا الكيس وجهنم وانا كواريا allana waa u cadhooday waana lacnaday cadaab weyn waa u diyaariyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ruuxa muuminka diintiisa inuu waasacnimo kaga sugan yahay ka zuuli maayo intuusan dhiig xaraama galin dhiig xaraama markuu galo diinkiisii waa cidhiidhiyamayaa waasacnimadii buu waayayaa xaalad khatara iyo ciriiri buu galayaa xagga diinta arintuna waxa weeye sida nabigu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hal ruux oo mu'min oo xaq darro lagu dilo ayaa ilaahay agtiisa kala weyn in ay adduunyadu baaba'do oo zuusho adduunyadan samaawaadkeeda iyo dhulalkeeda iyo badaheeda iyo buuraheedu inay baaba'do با إلهي كلفظت هل روح مؤمن الدلكيس وحيالي مؤمنك وكحق ويه إلهي أكتي سنة وككرام بدني هاي الدنيا دا أردن حتى كعبدا سيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى كعبدا وحا كقيمة بدن روح مؤمنك ما أنت كعبدا الدميي نين كعبدا تغي أو الدميي حال كيسو إن لما فضضادين لكن نينك بقولك النفع مؤمن السمر عكت مريي وركيس وفضوديه الله تبارك وتعالى نف مؤمن ذا أكتيس كما فضودا ملائكة مركو ربي كويري وحن أبوريا ملك وحن كو أبوريا أضومك كويئة وأوكل الضنبيو مامولة ابن آدم كالغها الله ياي أي ملائكة وحي لهذين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ربي يو dhulka ma waxaad yeelaysaa cid fasaadisa oo dhiiga daadisa malaa'iktu fiirso dunuubtii kala dhan mayna sheegin laakiin ibn aadam waxay ku eedaysay oo ku sheegtay dhiig buu daadin doonaaye seeba dhulka u keenaysa ma waxaasad rabbiyo dhulka keeni dhiig la daadiyo sidaas daraadeed baa maalinta qiyaamada xisaabta rabbi maxkamadda waxa ugu horeeyo oo dadka lagu kala saari doono dhiiga u horeeyo intaan fayl kale la furin oo diiwaan kale la furin oo wax kale xisaabtooda la qaadin dhiiga ugu horeeya awwal ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati ad-dimaa dhiigu ma sahlana ruuxa mu'minka ilaahi rumaysan qalbigiisa wax yaro iimaana ku jiro ruux muslim adilkiisa hatta kalima niskeed hatta hal xaraf kaga ma qayb qaato waa ka carara waa ka ixtiraaza waa iska ilaaliya waa iska jira waa ka dhowrsada
لأن وحويان وميل هلس روح قلينا كما بحو سيدا أثر عبد الله بن عمر والتلمامي روح قلي كما بحو كما نبيع كرو بل وحد عيسى مركا أديك داديسو الله تبارك وتعالى وحو كوغو امتحانا يا ديغاسي إنو كوشي دا ديغاك فربضان way markaa kuu fududaato inaad dhiig cabto ood bada dhiig ajiidho oodan u aaba yeelin waxaad samaynayso waxay ka dhalatay dambi aad gashay nataa'ijtiisa waa arintu waxay u baahan tahay dadka muslimiinta khaasatan ummadan aan luqadeeda ku hadlayay ee ibtilowday ee intaas sano dhiigeeda daadinaysa ee jaraa'imta galaysa xagee loo tagi doonaa soo Allah maxkamadiisa la tagi maayo tabaaraka wa tacaala maxaad samayn doontaa rabbiga markaad intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbiga tabaaraka wa tacaala hortiisa intay kugu dhagaan ay yiraahdaan rabbiyow waa ka kiina dilay weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما واحد جواب له هلي كرا روح مسلم ولا دلمية إلهي أكتس جواب له هلي كرا جواب ماله وحيابها دعية وواحد لوغنح وانا واحد لغا مرقوده وانا واحد لغا يقصده حالده سواحي سي أدكته مركز جرائم تنوع عاصل لغو سمين يو مقع جهاد مركز لغو سمين يو مقع دينة إلهي بالله نصرين يا marka lagu sameeyo kitaab ilaahay baa dhulka lala rabaa inuu xukumo marka magacaasi la isticmaalayo bay xaaladu si adag tahay maxaa yeelay dadkii diintii baa la isku diri oo jihaadkii baa magaciisa lagu ciyaaray oo muslimiintii iyo fariidada baa la isku diri oo gaaladii baa lagaga qoslin oo lagaga farxinaya kullu dalika mafasid isa saaran weeye soo ceeb weyn ma adigoo muslim dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo ood sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yiraahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalan baabiye murtadiin baan baabiye oo ummadii ku tumato إلهي بان إذن كل داري سورة نوعية بيوتالله مساسا جهادا متاسا قال الله دقالنا متاسا وضن حرينا متاسا معوها خير وناق يقول له قدونيا أبدا أبدا سورة قبيحة حد سوغانيسان وحد دعيميه ويصوهر مرتي تاريخ ذا مركز ديب لو آخريو فكر كان منحرف كأه إن دي قو آبيالينين meel alla meeshuu arkaba dhiigga cabaya daaqaya fikirka noocani saalixiinta iyo caruurta iyo dumarka iyo dadweynaha aan dan ka lahayn fikirkaasi hadana ku faanaya hadda ma aha markaad akhrido kutubta taariikhda iyo siirada Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu khaliifkii raashidka ahaa ragii islaamka qaaday ragii ugu horeeyay buu kamid ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhiisii buu qabay ilmaadeerna way ahaayeen asagoo nool buu nabigu jannada ugu bishaareeyay saabiqiintii buu kamid yahay afarta saxaabada ugu fadli badan ninba dhiigiisa xalaashaday islaamnimo iyo jihaadna ku xalaashaday ninkaasi wuxuu ka tirsanaa qolada la yiraahdo khawaarijta Ali ibn Abi Talib oo salaada u soo baxay intuu u yimid ومدح كدفت سجى نكل علي مركو دعي ايو وحو كيري كدل اخري علي ويا له وحو علي وحكمك الهي با اسكله ادغنا مليد صاحبدانا مله حكمك الهي با اسكله محو كودا كتابك الهي با كليحتي oo rag baad ra'yigooda qaadatay حكمك إلهي با إسكالي أننا وحان كود لينا دين ربي إنا سوعل إن كتاب إلهي ندولك كحكم حكمك إلهي با إسكالي أذي الرقاق مليه دين عليو مرقاسو أخريي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ذاتك وحا كمذا روح نفتي سإلهي كقضي رضيه سيساقو الراديني
waxaan kuu dilay caliyow jannaan kugu rabaa ridaan ilaahay kaga doonaya waxaan rabaa dhiigaaga inaan janno ku galo allahu akbar ma cali baa dhiigiisa janno lagu gali ma cali baa dhiigiisa kitaab ilaahay lagu koryeeli ma cali ibn abi talib baa dhiigiisa nusra iyo dawlad islaam lagu dhalin fikir cajiib ah markaasaa mid dib ka yimid oo ragga fikradda xambaarsanaa abaa ammaanay wuxuu leeyahay ninka duriddaa sameeyey ee cali duray taqi ilaahay ka baqayuu ahaa duriddaa iyo dhibkaa uu geystayna jannuu ku raadinayey ilaahayna riduu kaga helaya marar badan baan xusuusan buuhi ninkii nooca ahaa markaasaa waxaan leeyahay buuhi ilaahay agtiisa addoommada midka ugu miisaan culus buu noqon doonaa yaa kariim maa abshaca suura aad u foolxun waay wamaca daalika rag baa janno ku raadsanayay cali ibn abi aalib dilkiisa haddii janno lagu raadsanayey soomaali layntooda in janno lagu raadsado maxaad ula yaabi marka cali baaba janno lagu doontay fikirku mar hadduu qalloocdo oo uu jidka ka baydho halis waay waxaan idin leeyahay waxa noocaasoo kalea in diin loo tiiriyo waa khalad in kitaab ilaahay loo tiiriyo waa khalad in jihaad magaciisa la siiyo waa khalad in la taageero waa khalad in laga beri noqdana waa waajib nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabigiisa khaalid ibnu lwaliid oo intuu ta'wiil sameeyey dad si khalada u dilay ayuu nebigu yidhi sal lay wasalam allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahu beri baan ka ahay kumana jiro ka midna ma ihi khaalid wuxuu sameeyey beri baan ka ahay khaalid wuu ijtihaaday dadaal bayna ka ahayd khayr doon buu ahaa nacam maanta inaad tunka saaratooo difaacdo ood waxa noocaasoo kalea u doodo walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum ina allaha laa yuxibu man kana khawaanan ahiima waxa noocaasoo kalea looma doodo lamana difaaco waa laga beri noqdaa haddaad ka beri noqon weydoy kula qumanaato waxaad ogaanaysaa hal qodob nebigu wuxu uhi sal lay waslam gefka marka la sameeyo oo dhulka lagu sameeyo ninka goobta jooga ee neceb ee aan doonaynin wuxuu la mid yahay sidii ruux ka maqan oo kale ruuxa goobta ka maqan laakiin raalli ka ah waxa dhacayana sidii isagoo goobjoog ahayoo sameeyey buu la mid yahay haddaad qaaradaha salkooda joogto oo waxa noocaasoo kale aad ku faraxsantahood jihaad u haysato inay bannaanta aad u haysato adigiyo midka galayba isku dembi baatiin ka soo amrayna idinla dembi wey midka sheegtayna la dembi wey waxa noocaasoo kale ah wax la tabriiriyo ama tunka la saarta ma aha dhiig muslim oo tumayaal ah oo boqolaal dhaawac ah oo dad gubtay ah oo dad dhuxuloobay ah oo ummad xataa indhahagu ayna qaban karaynina waxa noocaasoo kale inaad tunka saaratood ku faanto aaway iimaankii aaway diintii aaway akhlaaqdii insaanka caadiga ah baan sheegan karay ilaahay ha laga boqo tabaaraka wa tacaala meeshaynu ku soconno meel sahlan ma aha inxiraafku meeshuu gaadhayna meel sahlan ma aha da'yarta iyo dhallinyarada waxaan u sheegayaa xamaaska iyo niyad wanaagga iyo jannadoonnimadu yaysan cadaab idinla gelin adoo jaahilan waxba garanayn mid aan ku dhaaminba markaad u tagto oo uu ku yidhaahdo khalqigaa laa jannaduna waa iridda adiya janno waxaa idiin dhexeeya naftu inay kaa dhacdo laa oo aad haliishood yaacdood jannada ku orodo oo ay kuu timaado wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaad filanaysay waxaanayn uu kugu soo baxo meelaad ka noqoto male mindi uus ku tagtay rabbi baabaad hor tagtay jannaa meesha taalla naar baa taalla xisaab baa taalla khalaa'iq aad laysay baa meesha taalla ma waxa kuu shafeecay hebel baa yamay ma waxa wax kuu daraysa ururkan ka tirsanaa ma waxa wax kuu taraysa niyadaydu way fiicnayd ma waxa waxba kuu tari mayso warkaadsada oo tartiibsada oo hays halaagina oo ummadda halaagina oo Allah ka baqa tabaaraka wa tacaala